furitaanka shirweynaha saddexaad ee xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye oo muddo dhowr jeer dib u dhac ku yimid ayaa ka qabsoomay maanta magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici hoggaanka xisbiga kulmiye ergooyin ka badan 1000 oo ka socday gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland marti sharaf asxaabta mucaaradka Soomaaliland guddiga diiwaangelinta iyo ururada iyo asxaabta siyaasadda Soomaaliland waxa halkaasi hadal ka jeediyay gudoomiyaha qabanqaabada shirweynaha xisbiga kulmiye Abubakar Xamuud waxaana ka warramay maraaxilkii uu soo maray qabanqaabada shirweynaha xisbiga kulmiye oo muddo dhowr jeer dib loo dhigay gudoomiyaha kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay maraaxilkii kala duwan ee uu soo maray xisbiga talada Soomaaliland haya kulmiye waxa uu sidoo kale dignin u diray madaxda Puntland maalmahan dambe inta ninka mas'uuliyiin waxa ka soo baxaya marlana durbana cawday waxaan doonaynaa inaan u sheegno dagaal waxa muddo oo faraha la gala inaan soo guuray hoggaanka mas'uuliyiin Puntland waa ayaan dagaal maaha waxay ka muuqataa ururihiis waxay ka muuqataa hadda suuqa maayo Soomaaliland maanta xukuumadeeda madaxweynaha xisbigeeda shacbigeedu wuxuu dhisayaa oo talaabo kasta maraya waayo waxa xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay qabsoomida shirweynaha xisbiga kulmiye oo muddaba la dhowrayay qabsoomidiisa Xasan Gaafadhi oo hore u sheegay inuu taagan yahay jagada gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ayaa sheegay inuu uga tanaasulay Maxamed Kaahin Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye inaan ka tanaasulay dhawaaqii ayaa kala sameeyay waxaan u tanaasulay mujaahid Maxamed Kaahin Axmed madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii 4 sano ee uu xilligii ololaha doorashada ballanteen waxay ahayd inaynu dalka ka samayno isbeddel siyaasadeed isbeddel maamul isbeddel dhaqaale iyo horumar dalka ku tallaabsado ilaahay mahadii dhammaan qodobadii barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga u qorshaysnaa aynu bulshada u ballanqaadnay wax fiican ayaa laga qabtay wax dhammaaday iyo wax gacanta lagu hayo haddii aan dul maro waxay kala ahaayeen aqoonsi raadinta qarannimada Soomaaliland iyo siyaasadda arrimaha dibadda horumarinta garsoorka iyo hagaajinta nidaamka cadaaladda nabadgelyada iyo